السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أنت مول بجوكتان رمضان ما نحي عيد وناكسن مول بجوكتان وحنا كل عام وأنتم بخير وما أنتم تقولوا إن رمضان بقول مكاي وجرتا يس عيد وناكسن أوكي سنقطع وحنا وناكسن نهاركم وحنا نقولها يا sheeko waxaa la yiri horta ayaamahan dhan waxaan sameyn jiray waxyaalo maaragtay oo aan soo gelin jiray maadaama oo ciid aan ku jirno marka waxaan iri maadaama ciid aan ku jirno sheeko ayaan hayaa waxaa la yiri sheeko iyada sheeko keentaa marka waxaan idin hayaa sheeko maaragtay qasayro dhacday yar aanu friend nahay aan asxaab nahay oo ayaa isoo wacay marka muhiimadda waxaan ka hadlayaa waxay ku socotaa waxa la yiraahdo لا تعمل خير ولا يجيك شر هذه متقنا خير أسميسو سو شر كوي مانين يعني موضوع واي أن كهلا يوم إن وحواي يربى الصواعي وأنا أصحابنا هاي وحو يجي شيء كينا ما دام بريهن يبلوين كان أو سعودي وحلي هذا عذر أو سعودي وهرجب هلا أبو واي بدنا نذكرنا مع رقص مالدينا وعلي قلنتو آد متخنا متخنا وجو يرد نقول إذا تا marka wacdi gelin badan baa la sameynayay wuxuu ahaa badan waxa la hayay stay home guriga joog si aan mataqaana aysan dhibaato aysan kugu imaanin oo maaragtay oo cudurka faafayo oo kugu dhicin marka sheekad aan ka hadlayo aan ka sheekeynayo waa sheeko dhacdo waaye oo la soo waxa la igu yiri magacna ha sheegin qofna ha tilmaamin just yarba soo wacay qisadii ay ku dhacday baa soo wacay igana sheekeeyay yarkii ay saaxiib ahaayeen waa laba wiil oo saaxiib ah friend ah oo halkan Mareykanka la degan maalmaha kamid ah ayaa mid kamid ah ayaa wuxuu sameeyaa labadooda taraag bay wadaan mid baa wuxuu sameeyay dhalinyartu waa ka taqaanaan waxay jecel yihiin markii ay off day ay yihiin oo kale to inay mataqaan magaalo kale ay tagaan oo kale inay mataqaan ay oo soo dhaweeyo laakiin badanaa laakiin waxaan kula talin lahaa dadka taraaga wada you guys make lacag badan sameeytaan how to be honest been ma sheegayo how ay qofkii muhiim waxa ku fiican in aad adigii mataqaana hotel ay ijaarato oo aad uga dheeraato waxyaalaha maaragto oo adiga ku soo gaaray dhibaatooyina Soomaaliya badan waxaan sameeynaa sidii Soomaaliya inaan joogno ama baadiga inaan joogno ama ayaan qofku waxay sameynayaan qofkii taraag ku soo degaya wuxuu wacanaya his friend هاي أنت لقوا بعشالة أنت كشدان تاي أنت حاجة معناها dhibaatooyin badan buu qofka la kulmaya marka waxa lagu qaatay adigu waxa lagu qaatay soo guys maaragtay halkaas xogaa maaragtay qof baa yar fadhiyo xogaa maaragtay hada yar maqashay inta yar maqashay waxa weyn maaha waxa waaye waxa ku fiican inaad meel agooni aad iska degtid oo hotel aad seexatid oo waxa ku wanaagsan inaad adiga maaragtay ahaantaada naf ahaantaada naftaada inaad raali geliso laakiin hadaa dhahdo hey waa baashaalaya baashaalka waxa kaaga hor imaan kara problem badan ka hor imaan kara oo maaragtay adiga la kulmi karta oo aad ogeyn yani hore loo yiri muhiim ma aha marka waxa waaye dhibaatooyinka waxa waaye isdhaxgalka bulshada waaye marka barnaamijka aan ka hadlayo wuxuu ku saabsan yahay isdhaxgalka is-aamin la'aanta ama sida loo yaqaano qof baad u sameeyay waxa la yiraahdo maaragtay asxaan baa u sameeyay asxaankiiba wuxuu kugu bedelayaa inuu ficil xun ku qof kugu jawaabo marka macnaha waxa rabaa sheekada rabana in bilaabo maalmaha kamid ah ayaa yarkan kale yarkan buu soo wacay wuxuu ku yiri saaxiibo waxaan rabaa meel inaan ku baashaalo aan ku nasto labada bari oo weekendiga aan joogo marka saaxiibka kii kale wuxuu ku yiri warniyahow aniga maadaama uu cudurkan uu jiro dibkan uu socdo saaxiibo aniga ma baxay gurigaasna uma socdi marka wuxuu ku yiri warniyahow kaala ii imaaw ride si ama qaad meesha igay wuxuu ku yiri ku imaanaya waa ku qaadaya xaafadaas ayaan ku geenaya kugu tuuraya laakiin aniga gali maayo why buu ku yiri wuxuu ku yiri warniyahow aniga waxaan u galin buu yiri maadaama la yiri stay home oo maaragtay ninkan gurigiisa ma lagu baashaali karo marka wuxuu ku yiri gurigiisa ku baashaalaya marka taas aniga wuxuu dhahay aan u teegarin xaafadii buu ninkii ala kulli xaal tagay xaafada lagu soo baashaalay dhalinyaro badan bay is arkeen dadku u tagay ayaaba qaarkood waxa qabay cudur bay qabeen cudurka la coronavirus bay qabeenba so haddii aad qof walaalkaaya aad u qariso hargabka waa adiga oo dilay naf dhan adoo gooyay waay naf dhan oo bil aadan waay waxa ku wanaagsan haddii adiga aadan mataqaana cudurka aad qabtid isoo baar yani ceeb ma aha استوغل سوشيال ميديا
soo geli maxaa ku meel walba dhahay aniga waxaan waa ugu dhaceen qadar alle ku dhacday okay marka dadka badan maxay sameeyaan wixii qarsanayaan calaa kulli xaal yarkii meeshii laga soo tagay wixii ku dhacay 2-3 days ninkan telefoonku ka qaban waayay hargab badan daal badan kan badan wax ka taayir ku dhacay kiyo soo wacay wuxuu yiri why are igu qarisoo yiri markaas yiri waa maxaan ku qariyay why guriga xaafada ay geysay saaxiibow nimanka ii geysay qaar kamida waxaas qabay how do you know wuxuu dhahay dada soo wacay markaan u sheegay dhahay kii kala dhahaya dada u sheegay waxaan ku dhaw yiri warniga live markii ugu dambeysay xaggaasaan joogay warniga xagga maxaa ka doontay saaxiibka muuse ogeen miya dhur kiya loo qabsaday maxaan ku rahdaa مشاكل شركات waxay gaartay family to family maamooyinkii ma taqaanaa telefoonka ku diraan isdacaydayaan isdabaatayaan waxa dhibka u soo jiiday waa labada wiil waay okay marka saaxiibka marka wuxuu yiri warniga wajibu wuxuu yiri dhibkaas ay ugu dhacay marka maadaama waxa rabaa yiri inaad social media aad soo geliso oo adoon magacana aad sheegin marka waxaan leeyahay hadii aad adiga maaragtay aad walaalka qofka Soomaaliyeed ama qof walba bil aadana is not only Muslim you live in here in America or you live in Europe, you live in an Arab country. So ha uqarin bil aadan horta gaal ay muslim ilaahay we got one God. Hal ilaahay ma wadaysana. Laakiin anaga muslim nahay. Diinta muslimka waa naseexo. Diinta muslimka waxa waaye waa amaan, waa magangeliyo. Waxa lagaga baahan yahay dadka gaalada ka dheeraato. oo mataqaana yani dheeratin mid maxaan ka wadaa yani markay ku dhahaan gacmaha iska dhaq anaga alxamdulillah 5 times salaad tukana gacmaha iska dhaqnaa saxaraan iska dhaqnaa waa iska lin kareena soo meesha ay noo sheegi lahaayeen in anaga u sheegno waay right soo marka yaa laga badan marka adoo muslimna yaa banooni laga badan waana game ku ana ciyaartaa okay marka hadda koor ba waxa jiray anigoo jooga maxaan ku raahdaa Syria ayaa galaas anoo ku jira Carabiga oo dhiganaya ayaa macallin baa wuxuu nooga sheekeynayay wuxuu ka sheekeynayay ereyga la yiraahdo la ta'mal khair wala yajika shar saan hada khair aad sameeyso soo shar kuugu imaan marka nin waxa jiray qiso ka dhacday nin waxa jiray oo asxaabi kamid ahaa maalmaha kamid ayuu wuxuu sameyn jiray yani khariya waxa la tuulo degnaayeen tuulada markuu mataqaana imaado wuxuu dhigi jiray colbaa soo galay maaragtay dadku u sheegi jiray dadka mataqaanayada gadanayo subaxii salaamu alaykum colbaa soo galay marka waxa lagu yiri war inta majnuun naga tag waxa yani waa ka taqaana bili aadanka qofkii markuu wax badan uu sheego qofku waa la yaabaan adigu hadana maalin kale u yimid wuxuu ku yiri colbaa soo socda waa waxa ku wadwaalanta lagu yiri adigu muddo 3 sano ku qaadatay inuu ninkii soo baxo salaamu alaykum ya ahli qariya colbaa soo socda fardaa soo socda taan baa la sameeynaya dhibkaana dhici doona kan baa dhici doona adigu maalin kamid ayaa waxa soo galeen colkii duulayay ayaa waxay soo galeen tuuladii dhan bay gubeen farday wateen teendooyinkii gubeen ciyaaladii wax ku sameeyeen marka meesha ninkii marka oo asaga ahaa oo dadka u sheegi jiray dhigi jiray waxba soo socda ayaa asagoo geed hoosta jiifa ayaa waxa u yimid ninkii Fariska waxa lahaa ninkii meesha xukuma baa u yimid oo wuxuu ku yiri war ninka halkaas ma fadhiya maalin waxa ka fariistay duhur walba noo geeyo kiya la kacay leeyahay markuu kacay inta maalik maxaa qaldan markaas waxa lagu yiri adiga tuulada adaa gubay markaas wuxuu ku yiri seen tuulada soo gubay marka haaw markaas colka aad mataqaana soo hogaaminaysa adaa ka mas'uulaha ninkii uu cararay ninkii markuu cararay meel wuxuu koray geed u koray markaas uu yiri ya ahlu qarya isma'uni jiddan markaas la yaabay hadana uu ku celiyay markaas uu yiri la ta'maluhu khayran wala yajikum shar inoo ma shaqaalayo yani waxa waaye marka adiga aad qof aad asxaan u sameeyso wuxuu kugu noqonayaa wax la yiraahdo shar marka labadan wiilkii xaafada la geeyay oo mataqaan la yiraahdo guriga ku soo baashaal ayaa wuxuu sameeyay hooyadiis ayuu inta numberka u dhigay wuxuu ku yiri hooyo familka wuxuu ku yiri ninkan ba cudurka igu riday marka labada family ayaa mataqaan isku dhiga madaxa isku jiraan marka waxa waaye marka waxaan ku leeyahay adiga oo mataqaan qofka asxaan u sameeynaya asxaanka wax fiican waa la isku sameeyaa anaga Soomaaliya nahay qof Soomaali hada aragtay meel dariiqa lagu yeenayo hada joogto North America ama Europe ama Carabaha joogto baaburka u istaagay qofka waa qaadaysa waxa la xagee ku geeyaa ma ka fikirin qofka inuu ku dilayo ma waalan yahay
qof kan mataqaanaa maxabad wataa qof kan masuun wataa qof kan maxaa ii keena waxa qofku waxa ii keena gaariga aan saarayo waxa ii keena waxa waa kow waa muslimnimada laba waxa waa luqadda Soomaaliga waay luqadda Soomaaliga more important waay luqadda Soomaaliga waxa waay waxa kaaga fiican tahay adoo ku dhex jira hadda waa aragtay qof oo mataqaan cadaan adoo la degan xaafad oo qof Soomaali ka lugaan aragtay ku soo carartay dig ala oh my god Soomaali maanta inta ma degan tahay inta aan deganay anyway marka waxaan leeyahay mowduuca barnaamijkan wuxuu ahaa waxa la yiraahdo la ta'maluhu wala khayr shar ayu barnaamijkan marka waxaan leeyahay iskana ilaaliya dadka aan mataqaana adinka aad soo jiidanaysaan dadka aad keensanaysaan guryaha aad keensanaysaan saaxiibka hadduu yahay u sheeg waxa ku tar saaxiibo soo baar aan ahayn mataqaana dib qofka aad soo jiidin marka waxaan leeyahay like and subscribe and share ayaan isku ognay sidaa iyo nabadgelyo waxaan leeyahay kullu caam wa antum bikhayr ciid mubaarak kullu علينا waa inoo sanadka dambe ciida kale insha Allah nabad u gaartay sidaa iyo nabadgelyo